marka wuxuu qaadan la yahay gabar wadanka timid oo xijaaban oo muslimad ah oo markuu hadlaba ka daba qaadanaysa oo dabcan aan u joojinaynin isla markaasina warka uu yiraahdaba war la mid ah ama ka daran kasii daba tuuraysa marka aad buu uga xanaaqsan yahay maalin xitaa wuxuu gaaray inuu xijaabkeeda wax ka sheego taasi oo dabcan ku sii diri karta dad badan oo muslimiin ah oo dabcan in xijaabka wax laga sheego kale dabcan marka dawladda Soomaaliya ma u maleynayo dawladihii adduunka dhanaba gambanaya Soomaalida Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump wali xiisada u dhaxaysa waxay u muuqanaysaa inay cirka isku sii shareerayso iyadoo gobollo kala duwan oo ay ka mid yihiin Minneapolis iyo Minnesota labadaba lagu soo waramayo in haatan ciidamada la yiraahdo ICE oo dhinaca socdaalka ka shaqeeya ay wali wadooyinka taagan yihiin boqolaal qof oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa guryaha ku xareysan kuwaas oo tahlila inay shaqooyin aadaan si ka duwan qowmiyadaha kale ay Soomaalida u noqonayaan bartilmaameed haddaba maxaa ka soo kordhay isbaacsiga Trump iyo Soomaalida xaggeesa iminka wax marayaan waa sida aad u sheegtay magaalada Minneapolis iyo magaalada kale ee St. Paul oo ah magaalooyinka mataanaha ah ee gobolka New York aan iraahdo gobolka Minnesota waxa ka socda walina ay ciidamada ICE loo yaqaano oo hoostaga wasaaradda arrimaha guduhu ay ka wadaan howlaha lagu amray in halkaasi ay ka qabtaan ah in la soo xirxiro dadka loogu yeeray kuwa sharci darrada ah dadka dawladda ama xukuumadda Trump dhaleecayana ay ku tilmaameen in si gaar ah loogu beegsanayo howlgalkaasi dadka Soomaalida ah waxaana howlgalkaasi ilaa hadda qaybaha kala duwan haba ugu badnaato meelaha ay Soomaalidu ku badan yihiin magaalada Minneapolis ka socda howlgalkaasi oo dabcan xilligan oo ah xilli aad u qabow ah oo barafku uu da'ayo magaaladaasi iyo gobolkaasiba ay haddana ciidamadan loo yaqaano ICE ay sii wadaan howlgallada ay dadkaasi ku xirxirayaan Cabdicasiisow waxa caro dhaliyay oo mas'uuliyiinta gobolku sida gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada Minneapolis ba aad uga careysiyay in dadka la xirxiray ay ku jireen dad muwaadiniin Mareykan ah oo dhalashada Mareykanka haysta taasi oo gudoomiyaha gobolka ku qasabtay inuu warqad u qoro wasiirka arrimaha gudaha amniga gudaha Mareykanka Kristi Noem haweeneyda la yiraahdo isagoo ka cabanaya dhacdadaasi in muwaadiniin Mareykana la xiray oo xabsiga la dhigay maadaama dadka Soomaalida ah ay isku eg yihiin magacyadu isku ekaan karaan dad badan oo waxa la sheegayaa xitaa qaarkood ka mid ahaa dadka hor istaagay meelaha howlgalladu ay ka socdaan oo firimbiyada watay ku buuqayay qaarkood xataa in xabsiga loo taxaabay wiil Soomaali ah ayaa isna warbaahinta la hadlay oo wadani ah ama dhalashada Mareykanka haysta kaasi oo sheegay in ciidamada Mareykanka ama ciidamadaasi ICE ay xabsiga dhigeen marka dhacdooyinku iska soo daba dhacayaan duqa magaalada Minneapolis oo magaalada Soomaali badan ay ku nool yihiin ahna aad ayuu arintaas u cambaareeyay waxaana uu sheegay in muwaadiniintaasi la xiray sida uu hadalka u dhigay wax lagu beegsaday oo kaliya ay tahay inay yihiin amaba u eg yihiin Soomaali marka qofka waxa sida hadalkiisa ka muuqata beegsi gaar ah ayaa jira oo Soomaalida lagu beegsanayo marka wararkaasi ayaa ugu dambeeyay walina howlgalladu way socdaan maxamedow waxaa jira dad fara badan oo wadanka Mareykanka hanaan aan sharci ahayn ku taga oo muhaajiriina meelo kala duwan ay ka tagaan maxay tahay sababta aad leedahay Soomaalida waxay u noqonayaan bartilmaameed Trump si ka duwan dadyowga kale maxaa Soomaalida lagu haystaa horta Trump waa nin marba meel ku dhaca marba qolo gaar ah ayuu agdhigtaa amaba uu buuq ka dhigtaa marba hadba wixii u shaqeynaya ninkan waxa uu leeyahay taageerayaal uu wuxuu doono u sheego qaarkood si uu u madadaaliyo mararka qaarna sida dadka dhaleeceeya ay sheegayaanba marka xaaladdu ay ku adkaato kale waxa uu jecel yahay wax oo buuq dhalinaya inuu abuuro oo dadka isaga taageersan uu u abuuro mowduuc ay ku sii jeestaan oo aysan ku arkin waxyaabaha soconaya hadda dhaqaalaha kale waxyaabihii ugu badnaa ee xooga saaran marka ololaha ku jira ay maciishada aad bay u kacsan tahay Biden ayuu aad ugu aadeyn jiray inuu wax ka qaban waayo arrintaas dabcan maciishadiina way ka sii dartay wax uu ka
qabtay ilaa haddana ma jirto waxyaabo badan oo dhaqaalaha sida khubarada dhaqaaluhu ay sheegeen wuxuu dhibaya sida tariifiska ay wadamada shisheeyaha lagu soo rogayo iyo xaalad sugnaan la'aan ah oo dhinaca maaliyadda ah ayaa wadanku faraha la galay marka si dadku ay uga mashquulaan waxyaabaha fashilaada ah ee maamulkiisu wajahayo ayuu hadba mar damca inuu meel u jeediyo haddana waxaa u muuqata in Soomaalida uu ku sii jeedinayo dadka khubarada marka meelaha kala duwan eegto dhowr dhacdo dhowr arrimood ay ku xoojinayaan arrintan mid waxay leeyihiin gobolka Minnesota oo kale gudoomiyaha gobolkaas maxaa la dhahaa waxa loo tartamayaa sanadka dambe 2026 marka arrintan musuqa ah iyo waxyaabahan oo dhan waxa uu ku doonayaa in gobolkaasi doorashadiisa ay saameyn ku yeelato isla markaasina dadka cadaanka ah laga hor keeno loo abuuro mowduuc ay ugu codeyn karaan dhinaca jamhuuriga loo sheegay in dadkan muhaajiriinta ah ee la degan ay yihiin dad lacagtoodii xaday oo tuuga ah oo dabcan dhibaato ku soo kordhiyay gobolka sidaasina uu ku damacsan yahay in gobolka uu ka dhigo gobol dhinaca Republicaanku ay ku guuleystaan dadka qaarna waxa ay leeyihiin gudoomiyaha gobolka laftigiisa oo aad la socoto in madaxweyne ku-xigeen Mareykan uu tartamay doorashadii dhaweyd in laga yaabo in magaciisa lagu sii dhiiqeynayo maadaama ay macquul tahay 2028 inuu ka mid noqdo musharaxiinta ugu cadcad ee kursiga aqalka cad u tartami doona waxyaabo badan ayaa la leeyahay oo ka duwan sida dabcan anaga hadaan Soomaalinahay waxaad la socotaa Soomaalida qaar waxay leeyihiin Ilhaan Cumar baan ugu dirtay ninkan Ilhaan Cumar inay aamusto Ilhaan Cumar laakiin waxaan ku sheegay Cabdicasiis sheekadan Trump iyo Soomaalida inay Ilhaan Cumar ka horeysay markii uu tartamayay madaxweynenimada oo la tartamayay Hillary Clinton 2016 ninkan Trump waxa uu tagay Minneapolis Minnesota halkaasi uu ka jeediyay khudbad ka dhana dadka Soomaalida ah xilligaas Ilhaan Cumar kama aysan tirsanin Kongareeska Mareykanka marka xilligaasina door inay u shaqeysaad u malaysaa walaacaasi uu ku abuuray ama iska horimaadkaasi uu abuuray taasi oo keentay in gobolkaasi oo gobol dimuqraadi ah wax yar uun lagaga badiyo oo Trump lagaga badiyo wax yar uun oo Hillary Clinton ku badiso marka waxa malaysaa tii inuu hadda dib u soo celinayo oo uu arkay inay u shaqeynayso aad baan ku gartay bal hadda marka Trump waxa uu wada abaabulkiisa ciidamadiina waa adeegsanaya socdaalka ICE xogtaan helayna Maxamed oo aadna tilmaanto waxay tilmaamaysaa in dhowr qofood la xiray xilli qabowo daran ay dhacayaan bal Soomaalida dhaxdeeda midnimadeeda ka waran iyo sida ay arrintan ula falgalayaan ma u arkaan in si gooni iyaga loo haysto arrintan ma ka midoobeen Soomaalida kaliya ma ahan Cabdicasiis dabcan marka bulsho laga hadlayo dad markasta tafaraaruqooda waa iska dhex jiraan laakiin majority ama intooda badan Soomaalida ku nool gobolkaasi iyo Soomaalida gobolada kale ku noolba dabcan arrintan way ka midaysan yihiin waan u jeedaan wax ayaga ka dhana inay tahay oo laga wado xafiiskii ugu awoodda badnaa kaliya Mareykanka ma ahane Donald Trump waa madaxweynaha ugu awood badan caalamka oo dhan marka arrintaas waa arrin miisaankeeda leh muggeeda leh maadaama madaxweynihii dabcan ugu awoodda badnaa adduunka uu haysto bulsho yar oo ayaga dhanba 100 iyo xoogaha kun lagu qiyaaso oo kamid ah wax aad percentage aad u yar ka ah dadka Mareykanka marka arrintaas waa arrin miisaankeeda leh kaliya Soomaalidana ma ahane dad badan oo ah cadaan oo kala duwan dad yaabo kala duwan madow leh cadaan leh ayaa iyana garab taagan Soomaalida oo hadaad social media eegto hadaad eegto Minnesota meelaha howlgalada ka socdaan dadka jooga dhamaantood waxa muuqata in garab istaag weyn ay jirto dhinaca kalena dad badan oo nugu shidaya oo social media iyo siiba kuwa xaq jirka ah aad bay u badan yihiin oo iyagana waxyaabo doodooda xoojinaya oo ka dhana Soomaalida laakiin ugu dambeyn Cabdicasiis wadankan wadan sharciyo leh wadan maxkamad leh wadan xuquuqda qofka in la dhowro ay waajib tahay marka wax uu hadda ka qaadayo waxa Trump keenaya in mar xataa siyaasad inuu ka hadlaba oo damco oo soo hadal qaadayo Soomaalida iyo Ilhaan Cumar
iyo maxaa la dhahaa dadkaasi waa uun wax u qaadi karo weyn inaysan jirin wixii uu qaadi karo dhan wuu sameeyey oo ka mid tahay in dadka qaxootiga ah imaanaya uu joojiyey in dadkii TBS sharciga la dhahayay ee ku meel gaarka ahaa oo madaxweyne jamhuuri ah George Bushkii weynaa 1990 uu soo saaray oo Soomaalida u ogolaaday inuu meesha ka saaro wuu sameeyey waxyaabo badan oo uu sameyn karay asaga awoodiisa ahayd wuu sameeyey laakiin waxyaabahan hadda uu wado waa un iska hadal wax uu ka qaadi karo qof dhalashada haysta Mareykanka ma jirto dadka Soomaalidana way og yihiin xuquuqdoodana way yaqaanaan dabcan wax uu ka qaadi karo hadda weyn oo la saadaalinay male waana wax iska socon doona maalmo kooban sida Trump looga bartay mowduuc walba markuu ayaamo saarnaado ayuu haddana dhinac kale u rugmadaa marka waan sugaynaa in maalmaha soo socdo oo ama qolo kale ku jirta amaba uu iska dhaafo mawduucan gabi ahaanba waayahay hadda gudaha dalka Mareykanka wararka laga helayo waxay tilmaamayaan in ay jiraanba magaca Soomaalida dadka hadda inay aad u baranayaan oo dadyow kala duwan ay hadda raadinayaan bal ogaanshiyaha jinsigan ama isirkan Soomaaliga la yiraahdo geeska Afrika ka yimid ee ku nool dalka Mareykanka bal arrimahaasi maxaad maxamed oo nooga sheegi kartaa sidoo kale runtii sida muuqata markaad eegto social media markaad eegto warbaahinta waaweyn ee Mareykanka ee mainstreamka loo yaqaano kuwa alternative media loo bixiyay ee hadda warbaahintii taqliidiga ahayd ama soo jireenka ahayd ka duwan dabcan dhammaantood waxa ay hadal hayaan Soomaalida waxyaabaha gaarka ah ee soo jiiteen waxa kamid ah hal abuurnimada qofka Soomaaliga ah ama shakhsiyadda Soomaaliga ah siiba marka la eego in arintan iyaga ka dhanka ah ee madaxweynaha Mareykanka ka soo yeertay in si oo shactiro ah ay u bedeleen oo wax lagu qoslo ay u bedeleen iyagoo isticmaalaya fariimo soo jiidasho leh oo dadka ka qoslinaya si dadbanna u soo jiidanaya ay ku muujinayaan hal abuurnimadooda dhinaca tiknoolajiyada hal abuurnimadooda xagga shactirada ama fanka iyo message-kooda inay gudbiyaan iyagoo aan xanaaqsanayn waxyaabaha waxa kamid ah dabcan sida aad la socoto waxa aad u soo jiitay warbaahinta Mareykanka oo kale waxa kamid ah arintan la xiriirta in Soomaalida 3,000 sano ka hor loo ballan qaaday gobolka Minnesota oo loo bixiyay Minnesota dadka aad bay u soo gudbinayeen aad baa looga hadalhayay warbaahinta Mareykanka oo dhan waxaana dabcan ay arintaasi ay si indirect ahna ama aan toos ahayn ugu durayeen dadka Yuhuudda ah ee Falastiin iyagu sheegay in loo ballan qaado oo yahay dhulkoodii loo ballan qaado oo Ilaahay u ballan qaaday marka si indirect ay fariintaasna uga jawaabayeen oo fariin ay dadku fahmi karaan oo muddooyinka 2 sano la soo dhaafay ee xasuuqa Gaza uu socday dadku aad ay uga dhargeen ay dabcan si u xoojiyaan fariintooda inay meelo dheer gaarto ay aad u soo qaadanayeen waxyaabo badan ayaa kamid ah sidoo kale annaga kale hadda Minnesota ma joogno Washington DC caasimada Mareykanka iyo gaarkeeda ayaan deganahay marka qofku ku arko inaad Soomaali waqti oo kale waxay ku weydiinayaan xagee ka timid Soomaali marka tiraahdo oo madaxweynaha Mareykanka idinka hadlayo waxa ugu horeeyo qofku uu soo qaadayo waa arintaas marka waxa u maleysaa in dad badan oo markii hore laga yaabo inay marka tiraahdo Soomaaliyanka imid halkay ku taala Afrika xagee kaga taala ma dhinaca koonfureed ma dhinaca galbeedka ma dhinaca bariga dadku dhihi jiray inay hadda markiiba madaxweynuhu marka hadalkiisa uu ku soo dhacayo oo meel dheer magaca Soomaaliga uu gaaray Trump Soomaalida Minneapolis ku nool oo kaliya iyo Minnesota ma haysto waxa uu sidoo kale si weyn u dhaleeceeyay dawladda Soomaaliya iyo geeska Afrika meesha uga taala iyo sida wadanku u eg yahay iyo siyaasadda iyo baarlamaanka iyo booliiska intaba arrimahaas Soomaalida Mareykanka jooga sidee u taabatay jawaab la'aanta dawladda federaalka ee Soomaaliyana sidee u macnaynaysaa aragtidayda aniga waxay ila tahay Trump inuusan u socon Soomaaliya iyo inuusan u dan lahayn Soomaaliya ay tahay dabcan waxa uu jeedo ay tahay Soomaalida halkan iyo Ilhaan Cumar inuu xumeeyo oo ka dhigo dad aan dawladnimo aqoonin oo aan waxba aqoonin oo Soomaaliya la tagtay dawladda Mareykanka dawladda Soomaaliya way aqoonsan tahay Soomaaliya waxay kamid tahay qaramada midoobay golaheeda ammaanka sida mas'uuliyiin Soomaaliya ay sheegeen dhowr mar oo codayn halkaas ay ka dhaceysay Mareykanku u yimid iyagoo ka dalbanaya inay wada shaqeyn la galaan hadda maantadan waxa akhrinay warbixin dhahaysa Soomaaliya waxay muhiim u tahay la dagaalanka argagixisada oo dabcan laga qoray howlgaladii ugu dambeeyay ee Mareykanku uu ka fuliyay Soomaaliya sanadkan
waddan keliya intii uu Trump joogay ay noqdeen aad uga badan yihiin intii Biden uu geystay oo weerarada ka dhanka ah kooxaha Daesh iyo Al-Shabaab oo Mareykanka dabcan ay u arkaan muhiim inay u tahay Soomaaliya laakiin madaxweynuhu dabcan hadalladiisa waxa uu la jeedaa oo kaga uu rabaa in Ilhaan Cumar uu ku waji xumeeyo dabcan uuna ka dhigo markas wuxuu ku celceliyaa iyadoo ka timid waddan aan dawlad lahayn ay halkan noogu timid oo ay rabtaa inayna maamusho oo dabcan ay noo sheegtay sida waddankeena loo rangareeyo ama loo maamulo marka dabcan Ilhaan Cumar ay u jeedaa madaxweynaha Mareykanka waa nin aad loogu yaqaan in qofka markuu ka soo horjeesto aad u dabagala marka xitaa xubnihii xisbigiisa intiisa badan way ka aamusaan oo way ka baqaan inuu buuq ku furo hadda gabadhii u dambeysay oo MTG Hyde oo gobolka Georgia ka timid oo xildhibaanad golaha wakiilada ahayd hal mar ay ka soo horjeesatay markii uu buuq ku furay oo ku tilmaamay qof qaa'inul wadan ahna isla markii way iska casishay xubinnimadii Congress-ka marka wuxuu qaadan la yahay gabar wadanka timid oo xijaaban oo muslimad ah oo markuu hadlaba ka daba qaadanaysa oo dabcan aan u joojinaynin isla markaasina warka uu yiraahdaba war la mid ah ama ka daran ka sii daba tuuraysa marka aad buu uga xanaaqsan yahay maalin xitaa wuxuu gaaray inuu xijaabkeeda wax ka sheego taasi oo dabcan ku sii diri karta dad badan oo muslimiin ah oo dabcan in xijaabka wax laga sheego kale dabcan marka dawladda Soomaaliyana ma u malaynayo dawladihii adduunka dhanaba gambanaya su'aashaada qaybta dambe daan soo noqdo dawladihii adduunka dhanaba gambanaya oo ninkan u soo kala ordaya oo leh bal haduuba naga sii jeedo ya dawladaha qaar waxay leeyihiin xataa waxay u magacaabayaan bilada nabadoo kale si ay uga kasbadaan inuusan ku soo jeesan Nigeria kale waa la socotaa waxyaabaha ilaa hadda uu wado South Africa kale wuxuu leeyahay cadaankii gumaada Nigeria muslimiinta masiixiyiinta iyo gumaada ayuu leeyahay wadamo mar ayuu ku sii jeesanaya Venezuela waa kan ciidamadii dhan u diyaarinaya marka dawladihii oo dhanba adduunka ay Soomaaliya iska ilo dawladihii waaweynaa naga awood roona ama Soomaaliya ka awood roona ayaaba ka gambanaya marka ma u malaynayo dawladda Soomaaliya xitaa hadii hadasho wax weyn oo soo kordhaya inay jiraan